الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaallayaal sidaynu ogsoonnahay waxaynu ku dhex jirnaa bilowgii sanadkii hijriga ahaa islaamiga ahaa. marka kelmadeennu waxay ku saabsan tahay macluumaad sanadka islaamka ku saabsan السنة النبوية الهجرة النبوية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام iyo wixii laga faa'iidayo waxa sababay iyo muhiimadda ay lahayd. saddexdaa qodob baynu isdul taagi insha Allah. xadath ama dhacdo waliba taariikhda waxay leedahay waliba tii nabiga sallallahu alayhi wasallam wax laga macaasho oo laga faa'iideysto ilaahay baana ugu talagalay subxaanahu wa ta'ala. nolosheenna aynu wax badan ku saxaynaa xadadka dhacay ama dhacdadaas xigmadda ku jirta ilaahay ka lahaana waxbaynu ka fahmaynaa, wixii naga khuseeyana waa ka dhaqan gelinaynaa. qodobka horeeya waxa weeye asbaabu haadihi hijra. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaxoontigaa uu maka ka galay ilaahay daraaddii uga cararay sababa maxaa keenay? miyuu iska tegay nebigu mise sababaa jiray? sababaa jiray aynu ka soo qaadan doono 5 ka mid ah. sababta u horeysaa waxay ahayd reer maka oo nebiga ahaa tolkii sallallahu alayhi wasallam way diideen inay diintii hareeraha qabtaan ay nebiga la hinjiyaan, way iska soo taageen intoodii badnayd. 13 sannadood buu nebigu dacwadda ka dhex baahinayay oo aanu waxba ula hadhin, cadadka raacay uu koobnaa. markii ilaahay uu doonay dowlad islaamiya inuu dhiso kuwanaysa soo taageen, waxay noqotay in hijro loo ogolaado nebiga calayhi salaatu wasalaam. aag bedelashadu halkaasay ka timi marka u horeeya. marka labaad, tahiyatu lmadiina liistiqbaali lmuslimiin. ilaahay wuxuu diyaarinayaa dad kale oo fursaddaa iyagu ka faa'iidaysta oo reer madiine ah, oo halkay tolkii nebiga dil la baadi doonayeen ee guriga ay gaadh kaga qabteen oo habeenkii ka baxsaday, dad baa sacabo furan iyo durbaano iyo dabaalde ku soo dhaweynayay rasuul sallallahu alayhi wasallam oo reer madiine ah, oo lahaa dayaxii wuu soo baxay ee say tirinayeen dee hablaha iyo da'yartu guusha maalintaa la gaadhay. ilaahayna waa ammaanay waladiina tabawa'u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آيات سويلها رير مدينة كو أمانية سو دوين كلي أرنتم ما هينا وحي أي هيستين أي قريني بحيين سيين ولا له هذا أسوه جرودي وتذكر أرمها لو كل أيام بدين. أرنت صدحاضو حيد محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قد تعرضوا للأذى. نبي أصحابتيسي dhib baa laga dayn waayay oo waqtiyadii uu ka soo hijroonayay yar ka hor dee dhibkii ka soo gaadhay daa'if waynu garanaynaa. nebiga wuxuu yidhi bal maka ku daashay waxaad u yara aag bedelataa daa'if oo bariga maka ahayd. halkaasay u soo ururiyeen addoomihii iyo dad waalan ayay nebiga ku sallideen sala allahu calayhi wasalam. waa la shiiday ilaa dhiiggiisii shariifka ahaa oo cagaha gaadhay oo isagoo cararaya uu ka soo firdhaday. taariikhdaad ka akhriyaysa iyo siirada taasina waa ta keentay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta u fasaxo 2 jeer inay halkaa maka iskaga tagaan oo ay xabashida tagaan. xabashida u hijroodo taga buud intaan madiine loo hijroon. halkaa waxaa ka madaxa nin boqor ah oo aan dadka agtiisa lagu dulmiyaynin oo cadaalad leh, axmed najaashi oo markii dambe islaamay. taasina arrin waxay ahayd saddexaad oo sababaysa hijrada. taariikhda haddii aad siirada akhridana waxaad arkaysaa sidii loo bukaasay loo balanbalinayay Camaar bin Yaasir iyo hooyadii iyo aabihii iyo Bilaal iyo Cabdillaahi ibn Mas'uud, Khabaab ibn al-Arat, saxaabadii ducafada ahaa. arrinta afraadna waxay ahayd ilaahay baa wuxuu doonay dowladda islaamku inay hesho dal iyo dad. oo dowlad marka la asaasayo waxaynu hijrada ka faa'iideynaa inay u baahan tahay dawla islaamiya ardiya wa umma
ummad hareeraha qabata oo ciidan u noqota iyo colkii u howlgeli lahaa iyo dalkii marka reer Maka kol haddii ay dowladdii islaamka dalna u noqon waayeen dadna u noqon waayeen Ilaahay halkaas u la doonay mar walba ciidan la saarayna xataa kii sanadii sideedaad Maka lagu xoreeynaha ahaadee reer ansaareed baa u badnaa بدر لقى صوب العاوة إلهي تانا وضوني سبحانه وتعالى مركا عدة دوني سد دولة إسلامية إني أساسته عدة دوني سبها أهاته وإن أرضية دي لا ديارية دلكي لقى أساسي لها إيا دادكي هذه دولة إسلامية ولا دوني أنا دادكو تاقر سنة وإن لسوقر سياهير لإسلا فهم أورتا دادك إلا دادكا كلها دقالمية دولة إسلامية قال مركا دادو لسايسو hadday iyagiiba duminayaan horta hala soo gaarsiiyo in la isla fahmo oo la aqoonsiyo inuu shaygani dan u yahay waana siduu nabigu sameeyay heshiisii u galay heshiiskii caqabadii hore iyo caqabad thaniya oo reer ansaaradii iyo daayartoodii iyo dhalinyaradii iyo salaadiintii uu ku qanciyay dowladdan islaamka inay u dadaalaan arinta shanaad waxay ahayd alhijratu sunnatun min sunani al-anbiya hijradu waxay ka mid tahay waa dhaqankii nebiyada iyo tababar Ilaahay uu soo marinay iyo waxay darajo ku helayeen dadkana mucallimiin ay ugu ahaayeen nabi nuux baa qaxay oo Ilaahay daraadii u firdhaday nabiyullah ibraahim nabi muusa nabi ciisa oo caalamka saraba Ilaahay uu hijrada u galiyay iyo nabiyullah muhammad wa shanta nabiy loo yaqaano ulul azm Ilaahay uu fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul wa adkayso oo u sabir nabiyadii go'aanka adkaay ul azmiga la oranayay sidii u sabreen aduguna u sabir shanta arrimood haddaynu ku soo dhaafno sababaha keenay oo intuba aad arkayso inay gar iyo macquul ahaayeen waxa ku xigaya lix arrimood inaynu ka xusno ahmiyat al-hijra an-nabawiyya muhiimadda ay u leedahay hijrada dadka muslimiinta horeysiyo dambeysaba muhiimaddaas waxa ka mid ah waxay ahayd marxalad kala saaraysay marxaladii hore iyo dacwadda waa nuqla macnaha geedi kala saarayay buu ahaa marxaladii hore ee dacwadda ee la yiraahdo al-ahd al-makki iyo marxaladda ama xaaladda labaad ee Madiina 13 ka sare horena qayb baa loo yaqaanaa dacwadda qaybtan dambe 10 ka sanana ee Madiina uu nabigu joogay sallallahu alayhi wasallam iyaguna waa xaalad kale quraanka soo dega kala duwana ahkaamta la jideeyay baa kala duwanayd awoodda la lahaaba kala duwanayd mid walba 10 laga baranaya labada marxaladood المرحلة العهد المكي والعهد المدني استدرادات بس 13 سنة اسم أمداد والنبي كشري دولة الإسلام كلا لسه يوا دولة ميسان بدن ومدن لبر بلارن هي الصبر هي التربية بوبهانت جيل كذي ومقرن كذي بدياري النبي صلى الله عليه وسلم كل كي مدينة وتجي النبي وحب العبد مركات تشريعي أحكامتي إن أمضى لا صوت شيء وحي قانوني النظام نقول لها إلا راعي لها وأهمية ذا كم لها وشرفها بشرف من قادها وهو النبي صلى الله عليه وسلم الحالة دا وحى شرفها عده قامين يسوى شرف بطني والنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر ودي ذين ويسكه يجروا ذا إلا النبي قرعه وحو يسوى وكور قليا وسوقي إنه النبي قرعه هلك شرفت إيا تاريخ ذا إيا أمانتك يا الله markii uu nabigu u weynu hijroonaynaana aad buu barbararay oo uu farxay oo uu qoslay imika ma waxaad igu bushaaraynaysaa inaan ku raaco oo inuu wada hijroono rag baa kaligood iska tagay haabu taasina sharaf bay u hayd waana sababta ay asxaabtu u doorteen inay ka dhigaan mabda'a taariikh al-islaami taariikhda islaamka waqtigii laga bilaabayay inaan dhimashadii nabiga iyo dhalashadiisii midna laga dhigin laakiin marxaladda kala guurka cajiibka ahayd ee isbedelka weyn islaamka u soo kordhay in laga dhigo waxa kamid ahaa ahmiyadeeda sharaful makan alladhi kanat alhijratu ilayhi goobta loo hijroonayo iyaduna sharafteeda iska lahayd oo markay asxaabtu halka tageen qaar kood baa yara xanuunsaday qaar kood baa boholiyo ku dhacayo Maka iyo u darsaday marka nabigu kaleey salaatu wasalaam waa kii qancinay waa kii Madiina u duceeyay intee oo daliil ayaa markaad nusuusta dib ugu noqoto amaanaya reer Madiina iyo Uhud iyo eriyada marka halkaasina sharaf bay ahayd waana waxyaabaha amiyada u sii yeelaya hijrada waxa afraad oo kamid ah waxyaabaha
mugaya miisaanka u yeelaya hijrada waqtigii hore hijradu waajib baahay sida arkaan islaamka oo kale ku dhaweydba may gaadhaynina marka qofku hadduu islaamo oo aanu ka soo hijroonin maka dembiilu ahaa dadkana wax lama qaybsan jirin oo uu ka dambeeyey qur-aanka haddaad akhrida aayado ka midana wuxuu ilaahay ku eedaynayaaba kuwa halkaa ku geeriyoodayba oo malaa'igtu ay la hadlayaan laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakullan wacada allahu alxusna ma sinna buu ilahay yidhi qabla alhijra dadkii dagaalamay ee wax bixiyey iyo kuwii bacda alhijra labadaasi way kala duwan yihiin kuwa hore ayaa miisaan badan oo ajri badan waxaa ka muuqanaya dowrka ay gabadha muslimadii lahayd islaamka iyo hirgelintiisa ayaa ka muuqanaya umu macbad oo nabiga tabaabushaynaysa sahaydiisana qayb weyn ka ahayd iyo soo dhaweyntiisa iyo asmaa bintu abibakr iyo siday nabiga u anba bixinaysay iyo kaalinta ay ku lahayd sirta haynteeda iyo tabaabushii nabiga doorkooda inay mar walba diinta hirgelinteeda dumarku ka qaadanayeen baa ka muuqanaya hijrada waxaa ka muuqanaya oo hijradu ay noo tilmaamaysaa ana asiraac bayna alxaqi waalbaatil yatakararu wayatajaddad inta adduunyadu joogto legdankaasi wuu jirayaa dagaalkaa u dhaxeeya islaamkiiyo iyo kufriga ama xaq iyo baatilka muslimiinta iyo gaalada wuu soo socday rasuulkii ugu dambeeyey rasuulladana wuu helay innagana wuu ina haysanayaa gaal iyo islaam iyo xaq iyo baatil legdankaasay ku jirayaan waana ta uu nebiga u caddeeyey ninkii waraqatu bnu nawfal la odhanayay oo ay ilmaadeen ahaayeen khadiija xaaskii nebiga sala allahu calayhi wasalam markii nebiga ilaahay uu soo diray ee uu yaro cabsadee loo waxyooday ayay kaxaysay oo waxay u geysay ninkaasoo suufi meel ku cibaadaysanaya oo reer nasaareeda wuu dhegaystay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu ka waraystay waxa uu arkayo kadibna wuxuu u sheegay wuxuu hi horta shayga aada la timi waa xaq waana naamuuskii iyo khayrsidihii nebi muuse u iman jiro ee malag ahaaba adigana kuu yimi miyaan xoog ahaado maalinta ee qoladaadu ay ku saari doonaan ay ku eryi doonaan markaasuu nebigu macnaa waan ku hilin lahaa buu leeyahy nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi oo miyay eryayaan waa tolkee dee wuxuu ogaa maxamedu lamiin bay u yaqaaneenoo way jeclaayeen oo miyay eryayaan buuhi tolkee waa lagu eryi doonaa buui qof kasta oo la yimaado xaqa aada la timi cuudiya waa la eryaa waana la colaadiyaa waxa lagugu haystaana maaha adiga laakiin waa xaq aada la timi marka haddaynu doonayno gaal inuu ina nabadgeliyo oo lagaa aamuso oo ubax lagugu soo dhoweeyo arrinkaagu waa qalad marka sidaa legdankaasi usoo jiro usoo bilaabmay cahdigii nebi muuse nebiyullaahi aadam uu shaydaanku diiday nebi nuux lala dagaalamay ilaa nebi maxamed sidaasoo kaleu legdankaasi loogu jirayaaye adigu kaalintaada buuxi hana gabin oo islaamka ayaan garabkaaga looga soo dhicin waxyaabaha hijrada ka baranayna ka mid tahay nataa'ijka haddaynu soo noqono 6 arrimoodba ah waxyaabaha hijrada laga faa'iiday ta u horeysa waxa weeye aljamcu bayna atawakkuli wa akhdi alasbaab inaynu ilaahayna tala saaranno awoodeennana diyaarsano oo arrimaheennana aynu ururinno oo asbaabta iyo wixii lagama maarmaan aynu la nimaadno oo nebigu sala allahu calayhi wasalam ilaahiisa uu tala saartay waa kaa markiisa qaatay hijrooday laakiin dee iskamuu siduu doonayo umuu dhaqmine wuxuu diyaarsaday sahaydii iyo gaadiidkii iyo ninkii dalyaqaanka ahaa iyo farsamadii iyo xeeladii uu baxayay intaba uu isku daray koonfur buu uga baxay nebigu madiina ee maka gaaru thawr meesha la idhaa buu galay godkaa buurta dheer dhakada kaga yaalla isagoo ku dhuumanayo raad gadanaya umuu bixin dee waqooyigii laga baadi doonayay halkii waddadii madiina taasina jahawareer badan iyo daal bay ku keentay reer maka inay soo helaan nebiga ilaa intii la soo wareerayay halkaasuu ku jiray gaadiidkii buu soo diyaarsaday oo reer abubakar u soo diyaariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkii dalyaqaanka ahaa ee uu aaminay ayuu isagana diyaarsaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam
taasina waa arrin lagama maarmaan oo ilaahay waynu tala saaranaynaa mar walba laakiin asbaabtaynu qaadanaynaa habeenkii markii uu baxayeyna cali ibnu abi aalib radia allaahu canhu ayuu nebigu ku yidhi salligayga seexo go-aygana huwo horay buu ka baxay intuu ilaahay iyagii ka indhatiray intuu fogaanayuu godkaa gaadhayay oo dhan cali bay eeganayeen weli wuu hurdaa macawistiisa la eeganaya weli wuu hurdaa markay soo yar baraarugaanay daaqadda ka eegaan isagii baa hurda waagiiba wuu baryay mise waa cali farsamooyinkay ka mid ahay marka taana inaynu ilowna maaha waxa aynu ka faa'iidaysanaynaa al-ikhlaas wasalaamatu al-aqraad wasalaamatu min al-aqraad ash-shakhsiyya qofku inuu waxa uu qabanayaa daacad ka yahay waxaad qabanaysaa waa inuu daacad kaa yahay oo aan waxba kuu dambayn ama waxba kuu hoosaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam markii diintan ilaahay uu ku soo diray reer quraysheed waxay u soo bandhigeen wax walba dad iyo duunyada ma madaxtinimaad doonaysa ma hablaan ku guurinabaad doonaysa ma maal baad doonaysa bal wuxuu sheego waxaasuu naga dah cusubeed keentay caqliga iyaga iyo ilaahayaashayadiiba ceebaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinkiisa isagoo u daacad ah si adag buu diiday oo taariikhda ama siirada ka akhriyi doonto waxaa ka mid ah faa'iidooyinka ama nataa'ijka daacatullaahi fi lmanshadi waalmakrah inaynu ilaahay amarkiisa qaadanno waxaa la ina amray haddaynu ku faraxsannahay iyo hadduu inagu adag yahay labadaba hadduu kuu fudud yahay hadduu kugu adag yahay mar balbal nafta ogolaysii laakiin haddii aad sharciga raacdo waxaasi markuu kuu fudud yahay markuu kugu yaro adkaadana qiilal aad raadisood sii siibato addoonnimadii maad xaqiijinin waa cudurkii reer banu israa'iil inta inoo fududun diinta aan raacna bay dhahay inta inagu adagna aan iska dhaafno sidaa daraaddeed ba rasuulku sala allahu calayhi wasalam maka wuxuu ka baxay isagoo dib u soo eegaya oo la innaka axabbu bilaadi illaahi ilay dal oo dhan halkaan ugu jecelahay ee aan ku barbaaray ee aan ku dhashay ayaa tahay makaay kaamana baxeen haddaanay kuwaas iga kaa eriyey naftiisii laakiin wuxuu ogolaysiiyey halkuu ilaahay amray inuu tago markaa sharcigu ma aha naftaadu waxa ay doonayso waa sharcigu waxa uu doonayo inaad ilaahay u daacad ahaato subxaanahu wa tacaala ama ogolaad ilaahay adeecdo waxaa nataa'ijka ka mid a xifdullaahi liman xafida inuu ilaahay ilaalinayo qofka ilaahay ilaaliya wase ilaahay loo ilaalinaya isagaaba ina ilaalinaya sharcigiisa iyo amarkiisa ayaad ilaalinaysaad ku dhaqmaysaad hirgelinaysa ixfad illaaha yaxfadk ayuu ahaa xadiid alqudsi xadiidka nabiga laga warinaya calayhi salaatu wasalaam min xadiid ibni cabaas ixfad illaaha yaxfadk ilaahay ilaali wuu ku ilaalin sharcigiisa un ilaali isaguna wuu ku ilaalin markaa waxaynu arkaynaa bushaarana ilaahay wayna siiya wuxu uhi faallaahu khayrun xaafidan wa huwa arxamu raaximiin cid wax ilaalisoo naxariisata ilaahay baa ugu weyn tab iyo xeelad waxay qurayshi lahaayeen dhagaxay rogeen markay meel walba soo mareen afarta jiho waxay isdul taageen godkii uu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam isagii abubakar hoosun baanay u eegine hareerihiisoo dhan way mareen abubakar waa kii nebiga la hadlayay calayhi salaatu wasalaam ee lahaa mid iyaga ka mid iha hadduu cagaha hoostooda ego ina arkaya ee uu nebiguna ku lahaa sala allahu calayhi wasalam maa dannuka yaa abaa bakr biithnayni allahu haaliuhuma maxaad abubakara u malaynaysaa laba ilaahay uu saddexaynayo ha u baqin ilaahay baa ina wehelinaya halkaasay ugu tegeen lama soo helin ama ha la yidhaahdo xayawaan iyo caaraa tegay ama wax kasta ha la sheego laakiin waa ilaalin ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam raggii isdul taagee soo helay waxaa ka mid ahaa suraaqatu bnu maalik intii aanu islaamin nin xariifa buu ahaa fardafuula wuxuu soo helay warkii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dambuu baxay isagoo dariiqa madiine sii haya intii laga quustay kadib ayaa qolo sahani u sheegtay oo siduu daba cararayay wuu isdul taagay ilaahay baa ka qabtay nebiga waa kii faraska dhulka la galay 2 jeer ama 3 jeer buu dhulka galay faraskiisu sidii buu kaga hadhay nabiga calayhi salaatu wasalaam kuna ictiraaf waxaynu ku bushaaraysanaynaa markaa rabbi subxaanahu wa tacaala ilaalintiisa mid ka weyniin aanay jirin cid aynu u ciirsanayno aynu magan galayno aynu hoos galayno inuu isaga noqdo rabbi subxaanahu wa tacaala isha cadowga jiniyiinsi midna ku arki maayo haddaad ilaahay u ciirsato
وأد مجنكش قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق أنت أشير بإلهي ونفر يعني إنه يسجد ديرانه وإنه معين يا مجنب يسجد نقرنه وإنه معين سنة سبحانه وتعالى وحنا نتائج كم إذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قفك وتعلي إلهي درادي وداية إلهي نوح أبدليا وحي سوحك خير بدن صحابة رضوان الله عليهم نبي أصحابته وحي كتجن دلكودي ددكودي دنيا دودي وحلا وحي كسو تبعين إيه الكيس ما كحيس النبي أدون كيس ما قاضني دلكي وسلاو تشعلا وكاسو كتجن لكن إلهي الكاسو بدل القرآن كان أول ديك جور رمي ومدرسة وسولة وين يسد آذو تشعل دل وناكسن يدد وناكسن يدنيا تيهرب كبضا يعيس يشرف يقول يقبل نمو أيه هلين مركا ريمو كلك كوات كذا ميسانته وحاد قياس يسمحوا إلى هاي الدنيا محو إلى هاي رالي كيه وحو إلى هاي رالي كيه هم بضرمينيس كاسم بأكت هذا كوين وحدونيس وحك خير بدن بانات هلي سدا سانوها النبي الله إبراهيم ومركوري إني مهاجر إلى ربي أنا أقول إلهي حقي سانو هجرون إياه تدلكي وكي مالك في عم بإلهي كانوا كعبة بودس سدا درادت بمركو إلهي لها اللي الصحابة وحو إلهي باوحو يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هدو إلهي قلبي إن خير كوغ هذا قلوبته إلهي أخرياي وحي الله إذن كلاها رأي وحكو ناكسن أيو إلهي دي سين دورا بشاردنا إلهي وأو حقيقي وقدام بينتي أرنت اللي حاذا النتائج أما وحيابا لقى فايدة كم إذا وحا أي نقنيان أما كم إذا مما يحقق الهجرة مما يحقق هوية الأمة واستقلالها هجرة وحكا بحي تاريخ حقيقي يسوهر قلينيس هوية أما أبترسيمة أمة الإسلام أمة وحيابا هوية ذو الشيء وحكم إذا أما عدة أيهين inay u gooni tahay mabda'oodu inuu gooni yahay taariikhdooduna ay u goonit maxay ugu dhigan yihiin gaaladu taariikhda miilaadiga ay taariikh kale ugu bedeli waayeen ciise ku daba leedahay waxay aaminsan yihiin weey marka inay ummadeennuna taariikhdeeda qaadato waxyaabaha ummadnimadeeda xaqiijinaya weey waa la heli karaya waqtigii saxaabadu ay qorayeen taariikhdan hijriga bilaabayeen inay ummadaha kale taariikhdooda qaateen way diideen waxay dooneen taariikh iyaga u gaara oo istiqlaaliyadooda iyo inaan cidaba socod u hayn cadaysa kadalik sidoo kale markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ummadda adaanka u jideynayay waxyaabo badan oo ummadaha kale ay isugu yeedhaan cibaadooyinkooda la soo qaaday caroogii baa la soo qaaday yahuuda iyo dawankii nasaarada intaba u diiday nabigu alayhi salaatu wasalaam marka qaadashada aynu qaadanay ummad kale taariikhdeedii waxay sheegaysaa tii asxaabtu inoo jideeyeen iyo hubiyadii islaamka inaynu dhaawacnay waana sababta la inoogu qasbayo ila leeyahay maalinta yahuuda ee sabtida qaata maalinta nasaarada ee xadda qaata maalinta jimcaha ummadda islaamka iska weydaarta taariikhdiinii ka tago tan kale miilaadiga islaanta miyiga haddaad weydiisaad tidhaahdo taariikhdii miilaadigu imise ahayd august iyo sebtembar iyo november bay ku kala sheegaysa iyo 19 iyo 14 midhan bay ku akhriyayaan ilaa lambaradoodii bay dadku qaybsan af Soomaaligoodina way ka tageen af Carabigoodina way ka tageen waxa soo dhan waxay sheegayaan waa ummadaha marka laga adkaado arrimaha lagu muqooniyaa ay kamid tahay lixda arrimood baynu ku soo koobi karnaa waxyaabaha taariikhdan hijriga laga macaash karo waa qayb ka mid ah waa soo ururinayna idan marka waxa muhiim ah inaynu garanno dhacdooyinkii nabi maxamed soo maray sallallahu alayhi wasallam kullaha natacallam minha duruus asharaynu ka wada baranayna qof daa u dhaadhacay qof weydaarta labadaba dadku waa yeelanayaan laakiin wax bila xikmada ma laha اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة